dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida iyo Al-Shabaab ayaa ka socda xadka Soomaaliya iyo Itoobiya xilli ciidamadii ugu badnaa ee militariga Itoobiya ay ka dhaqaaqeen magaalada Goday iyo xogihii ugu dambeeyay ee dagaalka waa bilowga warbixintan inuu ku iftiimi doono xogo cusub oo xasaasi ah balse daawada marka hore la garay muuqaalkan oo sheer si aynu helna saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale warbixintani u gaarto bulsho badan oo daneynaysa xogaha cusub mahad sanida aan ku bilaabay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa mar kale maanta ka qarxay deegaanka Laas Qurun oo aan ka fogeyn degmada Feerfeer sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal oo ku sugan Feerfeer rasaasta iyo dhawaaqa hub culus ayaa laga maqlayaa degmada Feerfeer oo qiyaastii 20 kiiloomitir u jirta goobta lagu dagaalamayo ah gudaha xadka Itoobiya oo laba cisho ka hor ay u tallaabeen boqolaal shabaab ah dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ay dagaal ay ku qaadeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo ka soo tallaabay dhinaca Soomaaliya isla markaana fariisin ka sameystay deegaano uu ka mid yahay deegaanka Laas Qurun oo xilligan uu ka socdo dagaal xoogan halka uu dagaalka culus uu ka socdo ayaa u dhaxaysa degmooyinka Shilaabo iyo Feerfeer ee dowlad deegaanka Soomaalida waana aad kaga fog deegaanadii maalmo ka hor ee ku dagaalameen ciidamada xoogga dowlad deegaanka Soomaalida ee liyu boolis iyo xubno ka tirsan kooxda shabaab oo ka soo tallaabay xadka Soomaaliya dadka degmada Feerfeer ayaa warinaya in dagaalku yahay mid culus isla markaana uu jiro khasaare ka dhashay dagaalka balse wali si sax ah looma ogaan inta uu leeyahay khasaaraha ka dhashay dagaalka waxaana ay sheegeen in arkayeen ciidamo fara badan oo kuwa dowlad deegaanka oo ka baxaya degmada Feerfeer si ay uga biiraan goobta dagaalku ka socdo dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba in dagaalkan uu saameeyo ama kooxda shabaab ee weerar ay ku soo qaado degmada Feerfeer dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa militariga federaalka dowladda Itoobiya ayaa ka soo dhaqaaqay magaalada Goday ee dowlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo ku wajahan deegaanada dhaca xuduudaha oo ay maalmihii u dambeeyay dagaal ay ku dhaxmariyeen ciidamada dowladda deegaanka iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ciidamadan soo sagootay ayaa kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda qaran isla markaana dagaal adag ay la galaan Al-Shabaab weerarka ku soo qaaday deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu sheegay madaxweyne Mustafa inay Al-Shabaab ay yihiin koox argagixiso ah oo diidan ammaanka iyo horumarka geeska Afrika in muhiim ay tahay in meel looga soo wada jeesto si markaasi looga guuleysto ayuu yiri kooxdan shabaab warar kale oo laga helay Soomaali galbeed ayaa sheegay in xalay dagaal goos-goos ah oo ciidamada liyu boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo xubno ka tirsan dagaalyahanada shabaab uu ku dhaxmaray deegaanka Dhafdhafi oo hoos tagma degmada Hargeysa helitaanka teleefanada uu ku yar deegaanka lama ogaan khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkii xalay dhaxmaray shabaab iyo ciidamada xoogga dowlad deegaanka Soomaalida oo maalmihii tagay dagaal qaraar ay ku dhaxmareen deegaano ka tirsan gobolka Afdheer iyo xuduudda labada wadan Malaysia ka tirsan Al-Shabaab ayaa abaabul ka wada xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya saacado yar kadib markii ciidanka gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalidu ay ku dhawaaqeen inay ka guul gaareen dagaalkii socday maalmihii la soo dhaafay gobolka Afdheer dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in la soo afmeeray wajigii koobaad howlgalkii ka dhanka ah Al-Shabaab gobolka Afdheer oo xad uu la wadaago gobolka Boqol ee Soomaaliya waxaana maalmihii la soo dhaafay uu dagaal ku dhaxmaray ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo xubno ka tirsan dagaalyahanada shabaab haddaba daawada inala wadaag aragtidaada ku saabsan dagaalkan ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee u dhaxeeya ciidamada dowlad deegaanka iyo Al-Shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka